الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waxaynu ku dhex jirnay fasalkii ku saabsanaa shahaadada ama maragga markhaati furka iyo axkaamta uu leeyihi walaa tuqbalu lama aqbalay buu ihi shahaadatu lacmaa qofka indhahala markhaati furkiisa ilaa fii 5 5 meelood mooyaane fii bacdi nusakh 5 mawaadica meelo oo 5 mooyaane markaa qofka indhahala wuxuu yihi maraggiisa lama aqbalayo waayo shahaadada waxaa loo shardiyaa qofku wuxuu ka markhaati kacayaa hadduu yahay ficil alibsaar baa loo shardiyaa inuu ficilkaa iyo cidda samaynaysaba u arkayay waxa uu ka markhaati kacayaa hadduu yahay qowla sidaa la yidhi waxaa loo shardiyaa asamc oo ah qowlkaa inuu maqlayay walibsaar qaa'ilka oo ah qofka qowlkaa yidhi inuu arkayey markaa qofka indhahalana dee araggiibaa ka maqan walihaada lama aqbalayo maraggiisa ilaa 5 meelood mooyaane walmuraadu waxaa loola jeedaa buuri bi hadihi 5 5 uu yidhi markhaatiga qofka indhahala waa la aqbalayaa maa shaygii baa looga jeedaa yahbutu sugmo bilistifaadati faafitaan uu faafo oo dee warkiisu dadka uu wada gaadho markaa waxaa faafa ee warkiisu dadka uu wada gaadho dad fara badani ay sheegaan oo laga aamin yahay inay been ku ballamaan hadday doonayaan faasiqiinba ha noqdaan iyo addoomiyo dumare shaygaa qofku markhaati waa ka noqon karaa haba indhalaadabe waayo arrimaha had iyo jeer ale istifaadada ku sugma inuu warkoodu faafo ku sugmaa waa arrimo mu'abada oo dee muddadoodu ay dheeraato sida guriga ama beertaa inuu hebel leeyahy ama qofkaa inuu hebel dhalay ama qabiilada reer hebel inuu ka mid yahay qofkaasi marka mar walba arrintaa bilowgeedii in markhaati loo helaa way adkaanaysaa marka waxaa lagu kaaftoomay bilistifaadati baa lagu kaaftoomay marka mana odhanayo waxaan maqlay dadkoo sidaa leh taasi shaki bay keenaysaa waa inuu idhaahdo ashhadu bimowti fulaan hebel inuu dhintay baan markhaati ka ahay dhimashadiisu miyuu goobjoogu ahaa maya inuu dhintay baa warkeedu u faafo dad fara badan ay sheegeen ama waxaan markhaati ka ahay hebel inuu ina hebel yahay ama shaygan beertan ama guriga inuu hebel leeyahay ama hebel inuu hebel xoreeyey laakiin ashhadu ana fulaanan maata ficil ka dhigi maayo hebel inuu dhintay ayaan markhaati ka ahay odhan maayo bimowti fulaan dhimashadiisaan markhaati ka ahay odhanaya laakiin inuu dhintay oo ficilka ah odhan maayo ficilku de wixii aynu sheegnay buu u baahan yahi faacilkii la arkayay dee markuu dhimanayay haddaba wax kastoo qofka indhaali ka markhaati furi karama waxaa shardi ah inuu yahay maa yahbutu bilistifaadati maya mowdka iyo nasabka iyo kuwaas iyo almilku lmutlaq iyo kuwaasay istifaadadu shardi u tahay oo marka dee la isla dhex maro ee dad fara badani ay sheegaan taa qofkuu markhaati kaga noqon karaa yaanu goobjoogba u ahaani 3 laakiin kuwa ka dambeeya iyaga istifaado looma shardiyo la soco warkaas maa yahbutu bilistifaadati waa 3 hore un inta ka dambeysa istifaado looma shardiyo 3 horena waa almowt walnasab iyo almilku lmutlaq milulmowti dhimashadii oo kale weeye iyo wanasabi nasabkii abtirsiintii lidakarin xaalo nasabkaa loo sugayo qof lab aw unha mid dhadig min abin aabbe xaggii looga sugayo o laleeyahay dee waa ina hebel aw qabiilatin ama qabiilo xaggeed looga sugayo o laleeyahay waa reer hebel
وكذا ساسو كلا وحا الأم هو يدي يثبت واسقميا النسب كنسب فيها يدو كسقميا بالاستفاضة تبقى كسقميا إن ضد فربضنا الشيغان إن قف كاهب الآية عند الشيء على الصح مركان نصب ده شرعية وحقه هو يدي متشروا النصب كله قوي قابل وشيدا إلى بيرو دعوهم لآبائهم marka qofkaasi inuu dhintay adoon dhimashadiisii goobjoog waa markhaatiwaad ka noqon karta haddii de warka dhimashadiisu aada u faafo dad fara badan oo been inay isku waafaqaan ama ay ku ballamaan aanay suurtoobini ay sheegaan saasoo kale nasabki ومثل الملك weeye waa sida lahaanshiya almuطlaqi aan sabab ku qaydnayn isaguna istifaado uu ku sugmaya weligeedba waxa la odhan jiro dadkoo dhan bay odhan jireen beerta hebel baa leh waad ka markhaati furi kartaa arrintaas adoo markuu iibsanaya ama dhexlaya aan ogeyn ama gurigaa hebel baa leh waayo milkiga mutlaqa wuxuu ga jeeda mid aan sabab ku xidhnayn marka ka sababta ku xidhan xukunkiisu muxuu noqonayaa labaa loo kala qaadayaayo haddii sababtu tahay wax istifaado ku sugma sida dhaxalkoo kale dee isna markhaati waa ka noqon karaa qofkii indhaha lahaa ila maa yahbutu bilistifaadati oo dhan markhaati buu ka noqon karaya haddii sababta shaygan qofku uu ku mulki ay tahay ee qofkan uu sheegay markhaatiga ahayd sababaan istifaado ku sugmin sida iibkoo kale inuu iibsaday taa markhaatiga kama noqon karo hadduu leeyahay guriga hebel baalo wuu iibsaday hadduu idhaahdo miyaad ogeyd markuu iibsanaya maya dee waa istifaada daalika arrintaa warkeedaa soo burqado meel walba ka dhacay laga yeeli maayo taa waayo sabab buu u tiiriyey milkigii aan istifaado ku sugnaan watarjamatu wa mithlu tarjamati turjumaadii oo kale weeye halkaa laga bilaabo istifaado lama shardiya la soco oo qofka indhaali مترجم waa laga dhigi karaa tarjamaduna de waa nooc min ashahaada wuxuu leeyahay hebel hebel saasuu yidhi buu leeyahay qofku ka turjumaya oo ka afqaadaya wax aragti u baahanna maaha dee codkiisa inuu maqluun baa ku filan wa qowluhu uu yidhi wamaa shaygii uu markhaati ka noqon kara qofka indhaali shahida bihi uu goobjoog u ahaa qabla alcama intaanu indhabeelin saaqitun waa mid dhacsan fii bacdi nusakhi ilmatn ومعناهنا waxa weeye أن الأعمى qofkan indhaali low taxamala shahaadata hadduu maragaa xambaarto فيma shaygii uu marag ka noqonayo yaxtaaju u baahan lilbasari arag qabla curuudi الcamى indhala-aantu intaanay soo darin lahu ee caleyhi isagaanay ku soo darin ثuma camiya dabeetana uu indhabeelo bacda dalika markuu arrinkaa markhaati ka noqday dabadeed shahida waa ka markhaati furayaa markanuu indhabeelay bimaa shaygii taxamalahu uu markhaatiga ka noqday isagoo indhaqaba in kaana waa hadduu yahay almashhuudu lahu ka uu marag furayo iyo wa caleyhi ka uu ku marag furayaaba macruufay اlismi wاnasabi kuwa magacood iyo nasabkoodaba la garanayo oo shaygaa wuxuu markhaati ka ahaa uu arkayey uu maqlayey isagoo indhaqaba intaa dabeed buu indhabeelay isagoo indhala markhaati waa ka noqon karaa marka taxamulu shahaadun baa loo shardiyaa alibsaar laakiin adaageeda looma shardiyo weyaan macno maxaa shardiya waa inuu dee dadkii magacoodii garanayo oo hebel oo reer hebela ayaa hebel oo reer hebel waxaa ka iibiyey haddaanu garanahayn magacoodii nasabkoodii maragiisu ansixi maayo waxaa iyaduna garashada lamida dee hadduu labadiiba gacmaa ku hayo kana isagoo indhaqabuu markhaati ka ahaa iibkooda kana gacanta midig buu ku haya kana gacanta bidix kaasi inuu baayici yahay midig waa garanaya kaasina mushtarigi inuu yahay dam isagoo saa gacmaa ugu haya buu indhabeelay xataa haddaanu garanahayn kan magaciisa iyo nasabkiisa arrintaa markhaati waa ka noqon karaa waayo kii wax iibsaday kan inuu yahay gacanta uu ku hayo dee waa huba kii wax laga iibiyena kan inuu yahay wamaa shahida bihi wuxuu wamaa shaygiina markhaati buu ka noqon karaa ka indhaali shahida bihi uu goobjoog u ahaa ama shahida uu ka markhaati furay bihi isaga shahida uu ku furay dhe bihi isaga cala almadbuuti qofkii uu qabtay
الذي ضبطه بوضع يده عليه والتعلق به كي ويسكلا الذي وصورته مضبوط كصورة سوحوية أن يقر إنه قر شخص قف في أذن أعمى مid in dhala dhegtiisa uu ku qiro bicitqin inuu addoon xoreeye aw talaaqin ama gabadhi inuu furay ama maalba dee lishaksin qof uu u qiro qofkaasoo yacrifu uu garanayo kan indhaali ismahu magaciisa iyo nasabahu wayadu waxaal yadu dalika alacma kaa indhaha lee dhegta loogu sheegayo gacantiisuna calaa ra'si dalika almuqiri كارنكا قرانيا مدحيسا اي سارنتay وفيتعلق waa ku dhagaya alacma ki indhala bihi ki wax qiranay ويضبطه وضبطنيا وكوبيا وقبانيا حتى يشهد عليه لا ku marxaati furo ayuu sida u haynaya bima sami'a wuxuu maqlay minuu isaga uu ka maqlay inda qaadin uu kaga marxaati furo ninkan dhegtu u saaro wuxuu yiri islaantii waan furay waa hebel reer hebel islaantiina waan furay qaadkaahu ama qofka tusaale waxaan u hibiyay ama waxaan ka hibiyay tan uu haya saasaan u hayay ilaa qaadiga hortiisa uu kaga marxaati furay taana marag waa ka noqon karaa ولا تقبل لما أقبل يبور شهادة شخص قف مرقي قف كاسيو جار وحاصلين لنفسه نفتيسة نفعا واحتر ولا دافع إن لما أقبل يمرقي سمي الدفاعي عنها نفتيسة كدفاعي ضررا لب مركا نفتيسو حقيقة وقسو تشيدا يا واحتر وحاصلين يا أما ديبو كدفاعي أما حكما با حكم كوا أدون كيسي وقناعسيغا u idmay ama mukaatabka ahaa wax nafci ugu jiro marxaati kama noqon karo weey wax dib ka difaacayna marxaati kama noqon karo wakadalika qofka isaga barka li baadihi wax ilmihiisi u soo jiidaya nafci ama waalidkii nafci u soo jiidaya kama noqon karo waxayna idin markaa aanu maraka noqon karin arrinka ترد والعلن يا شهادة سيدها الدبا كأدون كلام مرقس لعبدي وأمرك فره أدون كيسي المأذون له الله إدمي يسقو إدمي في تجارة جناسية إذا كاسات ده أرنتنا وكلا لقف لان كلام وقت كلا التصرف ما له ومكاتبه يمرق وفره أدون كيسي ولا كتاب وضي وكان ده صفة أدون نمو ولي حرير بولا ليدي لو حدعي كرتين كتابه ماشي كبحده صوما ادونك يسعجز قليل ادوني ما يسدب وقول نقضي كتاب احكام العتق اي الاعتاق حرينت احكامته كتاب كان ليوي مركا الاعتاق واسو مستر واعتق كيمي دو مستر ان لا دي عتقو كيمن لا عتقنا ولا لازم اعتق ايام حي أي متعدية لكن عتق اللفتة بمعنى اعتق والله استعمال على صعب وعتق عبده ويعتق والاسكير هذا وهو بوري أي العتق حرينت لغة مأخوذ ومن لقى سوقاتي في لغة العرب من قولهم أي رادان عتق ومدح بنان هذا الفرق أنا رشي شمبرته قور ما لهذا إذا طار مركو الدولة واستقل ويدي كما دح بنان هذا marka adoon kana de marka la xoreeyo de inuu duule bay ka dhigan tahay oo dabarkii laga furay adoonnimada waanu madax banaanaaday wa shar'an wa izalatu milki lahaan shasuulinti way an aadamiin qof bani aadam laga suuliyo la ila malikin iyadoo aan mid kale yeelanayo loo wareejinayn milkigi taqarruban ila Allah ta'ala dhawaansho ilaahay loo dhawaanayo oo giraarinka loo sameeyo oo salaanta cidqiga waa qurba weey wala qofku yaanu qurbo niyeysan be marka la soco halka uu izaalatu milkin de adoonka uu lahaa qof kari marka uu xoreeyay macnaheedu lahaanshiibu ka suuliyay bani aadam laga suuliyay meesha ka baxaya shimbir iyo xayawaan iyo haduu raado milkigaygu waan ka suuliyay ama waan xoreeyay xoroobi maayaan milkigiisuna ka suuli maayo inuu cid ku wareejiyo mooyaane tasyiibkii bay noqonaysaa geeleygii
lahaanshahaygii waan ka suuliyey cidna isagoon ku wareejin oon siin ma ansaxaysa taas marka isaalatu milki waxa ka fiicnaa inuu dhaha isaalatu riqi ila waqfiga laftiisa waxa lagu sameeyaa shayga qofku waqfiyo milkigiisa uu ka suuliyey sida saxiixaana isagu ma laha markuu waqfiyo ciduu u waqfiyeyna ma laha laa ilaa maalikina waxaa looga jeedaa shayga hadduu milkigiisii ka suuliyo oo cid uu ku wareejiyo cid kale milkigii uu galo taana dee cidqi lama idhaahdo hadduu addoonkiisi cid u hibeeye tusaalahaan wakharaja waxaa ku baxay biaadamiyin aynu nihi bani aadam in milkiga laga suuliyo aطayru shimbirihii sida xamaamkii oo kale walbahiimatu iyo xoolihii sida xayawaankii sida geel iyo lood iyo adhigiyo falaa yasixu ansixi maayo cidquhumaa waa xaaraan inu idhaa anu milkigii waan ka suuliyo anigu ma lihi ma cid baad siisay may mawlihiisaa iska joogay anigu milkigii waan ka suuliyey ma ansaxaysa taas hadduu laakiin iska sii daayo biqasdi libaaxa u dhahdo ciddii heshaaba ha iska cunto taas iyadu way bannaantay wayasixu waa ansaxaya haddaba cidqigu dee shuruud buu leeyahy arkaan buu leeyahy arkaantii waxaa ka mida muctiqa ka xoreeye ee muctaqa iyo siiqadii muctiq waa xoreeye almuctaqna waa la xoreeyey catiiqna waa la dhaha wayasixu mid walibana shuruud buu leeyahy wayasixu waa ansaxaya alcidqu xoreyntii min kulli maalikin buu ka ansaxaya mid kastoo addoon kale midaan addoonka lahayn ma ansaxayo xoreyntiisu ilaa biniyaabati inuu ku xoreeyo mooyaane waa qofkan lebuu weli u yahay mas-uul oo waa qof waala ama waa qof yar cidqi baana ku waajibay uu ka xoreyn karaa amaba dee waa loo wakiishay arrintaas kaa maaligaayo jaahisil amri ee jaahisi tasarufi miduu tasarufka maalkiisa ku u furan yahay ah tasarufoo amarka waxaa looga jeedaa tasarufka amar makhsuusa weeye وفي بعض النسخ جائز التصرف في ملكه يعني ملكيسا inuu ku tasarufaayo u banaan tahay milkigiisa tasarufkiisa uu ku fulayo sharcan oo waa qofka qaangaarka amiirka qaba rashiidkeedee safiih aan ahayn mukhtaarna waa inuu yahay arrintaa waa inuu doortay ahla lil walaana waa inuu mid walaha yeelan kara waa inuu yahay فلا يصح أنصح ما يعتق غير جائز التصرف تصرف كيس ميدان وبنانين تكريف الكمال كيس كتكريف فلا ميدان وبنانين حرين تيسو أنصح ميسو وذلك السبيين وهي سيلمية رادو أدوان كيس حرين ما أنصحيسو ومجنون المدوالنا حرين تيسو أنصح ميسو وسفيه نا حرين تيسو أنصح ميسو وكيبل على حج على ده حيراد الصاري ومفلس إنه والله ميد السجونة مفلس كنا ده مالكي deyntii lagu lahaa maalkiisa ka badato intii yarada lagu soo gaaraa loo xayiray dadkii deynta ku lahaa hadday addoome ku jiraan markaa dee ma xoreyn karo hadduu xoreeyana xoreyntiisu ansixi mayso wa qowluhu uri wayaqacu uu dhacayaa siiqadii buu halkana kaga hadlayaa hadalkii dee uu ku dhacayay cidqigu xoreyntu wayaqacu waa dhacayaa cidqigu bisariixil cidqi bisariixil ictaaqi xoreyn ereyga ku cad ee bilafdi sariixi fi lictaaq كذا في بعض النسخ وفي بعض ويقع دعي العتق بصريح العتق بو دعيا marka عتقiga hore عتق dambe kala duwan la socdo ويقع دعيا العتق xornimadii ah بصريح العتق بصريح الاعتاق xoreynta marka hore waa atharkii tadamana waa ficilkii waa اعتاقي وعلم ogow buu ri ana sariixahu ereyada ku cad xoreynta ila isku waafaqsan yahay kuwa kale waa jiraan laakiin waa la isku waafaqsanayn al-i'taaq weeye wa tahriir weeye iyo ma tasarrafa wixii ka sarfooma ka farcama minhuma marka i'taaq iyo de tahriir iyo soo master kiima i'taaq de waa soo master tahriir kina waa master masaadirtuna sariix ma noqotaba hada الكيس النصاص laga fahmay in masaadirtu sariix noqoto marka de waa masaadir oo dhan waa kinaayo weeye baabkeeda kinaayo ku tahay talaaqtii de cidqi tahay de wax kala tahay marka way waxa la qadaro la yiraahdo anna sariixahu mushtaq al-i'taaq i'taaq ism al-masdar ka wixii laga ishtiqaaqay way iyo tahriir wixii laga ishtiqaaqay وفك الرقبة وحي لقى اشتقاقي
ولهذا هو في المنهج يري زكريا الأنصاري صريح ومشتق تحرير واعتاق وفك رقبة بول كون لفتود صريح مع مسادرتني waxa iyaga laga ishtiqaaqa ayaa maxay sariix cidqiga ku ah waxa laga ishtiqaaqa waa maxay waxa laga ishtiqaaqa waa inuu yiraahdo tusaale ahaan hadduu yiraahdo ka waran anta i'taaqun sariix buu noqonaya anta taxriirun anta fakku raqabatin ma noqonaya sariix waxa laga ishtiqaaqay oo anta muctaqun wade ismu mafcuulkii laga ishtiqaaqay dee masterka iyo ficilka kala daactaqtuka iyo xarartuka iyo anta muxarrarun iyo kuwa la midka ka anta wama tasarrafa minhu maada looma baahnaynba oo sidoodaba kuwani sariix maba ahe wax iyaga ka sarfooba ayuun baaba sariix marka cadfigu dee wuxuu iska noqon karaa cadfu tafsiir saas bay sax ku noqon karta haddii kale laba ma kala ahae oo inaga nidhi taa lafta waa in mudaaf loo qadaro ومسادرته صريح من نقطتين كأنت عتيق إنه يرادو مثل حريات أو محرر ولا فرق بوري وح فرقي في هذا أرن كان حديث في وقوع الاعتاق بصريح العتق إذا صريح كواين وعتق وكل عيو فرق مدح بين هازل كي دلدلي وغيره يكاي كنبطهي وهزله جد عتق نكاح طلاقي دلدلكود waa xaqiiqo iska ciyaariye laga yeeli maayo qofka sida xukunka daahirka oo min sariix waxa kamida fil sahi fa kur raqabati marka de fakku lafteedu waa masdar sariix ma noqotee mushtaq fakir raqabati fakkur raqabati waxa laga ishtiqaaqo sida anta mafkuukun raqabati fakikun raqabati fakaktu raqabataka iyo kuwaade wala yaxtaaju ma baana asariix ereyga ku cad أما الصريح اعتاق حرينت كعدي إلى نية وبهنا إنه معنا نيستو إنه ردوين عتقين ردو ويقع دعا العتق أيضا بغير الصريح بكدعة إلى يدا كعد كوانا إنه وكنايدي كما قال السيد أبو شجاع والكناية وبالكناية بكون عتق ملضه مع النية حالة نية لصعته كناية من نية وبعض قول السيد ولا العبد يكون هذا لا ملك الله إن شاء الله أنا عليك دوش هذا يقوم مسؤولا هذا كناية وما يحتمل العتق وغيره كل لفظ يحتمل العتق وغيره وكناية هذا نية لصعتهم بحرين وغيره سي طلاقة بدأ ينقصارك لا سلطان لي ولا هذا wax awoodi liya ama maamuli liya aniga alayka dushaada igu ma sugnaan macna deewan ku xoreeyay inuu saa u jeedo iyo inuu jeedo waan ku iibiyay labada wax dhici kara weey iyo naxwa dalika waxa uu xishada wayda ataqa markuu xoreeyay jaysu tasarruf ku furnaa bacd abd buhri adoon barki مثلا waan tusaaleynayaa oo de adoon la noqon kara qofkii عتق وحروبيا عليه سجوا كحروبيا جميعه دمانتي سراية وعتق وكفضيا وأدون كي جبان أنجو أن وضلها أيام بر حري بدنا أدون بويه هي ما دعس تاس تلاقى عن هذا سن حري ود حروبيا موسرا سواء واحد اسكم إذا كان هي السيد ka adoonka uu isagu wada leeyahay barkii xoreeyay uu ka wada xoroobaya muusiran ahaya mid maal qabeena awla ama mucsir ahaya معينا هيا مد عيما كان هيا البعض بركاس معينا مد عيما او لا ودول غعنت هذا حري وعيمي بركا بن حري معينا مركا ربع بن حري معين واذا اعتقى ذو حري في بعض النسخ اعتقى وان نقول اعتقى بمعنى اعتقى له استعمالها كان نسخه ستاسي كتب شركا شر اي نصيبا قيب qaybtaas loo isaga u sugnaato fi abdin adoon ugu sugnaatay
مثلا waa tusaaleynaya una de ama adoonba ugu sugnaatay aw ataqa ama uu xoreeyo jamiicahu adoonkii uu qaybta ku lahaa dhammaantiiba oo waxa uu isagu muusirun yahay mid waxa weeyaan hodana bibaaqihi muusiru ku yahay biqiimati baaqihi intaanu isagu lahayn qiimaheeda uu muusir ku yahay oo bixin karo sara waa fidaya alcidqu cidqigii ilaa baaqihi inta kale cidda kale ay leedahayna nasiibkiisu ka fidaya inta kale loo ku fidaya ee alcabdi ilaa baaqi alcabd aw sara ama waa fidaya cidqigii ilaa maa intiibuu ku fidaya ay sara uu ku hodantinoobo bihi isaga macnaa intuu qiimeeda bixin karo oo min nasiibi shariikihi ka mid a cala saxiix marka ayaga addoonkii isagu wada lahaa waxaynu idhi hadduu bar xoreeyo wada xoroobaya sooma addoon uu qeyb ku leeyahay ayuu qeybtiisii xoreeyey ama wuu wada xoreeyeyba waxaa la eegayaa inta kale qiimeeda nin bixin kara may inta kale qiimeeda hadduu bixin karo addoonkaasi wuu wada xoroobayaayo dee ninkii inta kale lahaana intaa kale qiimaheedii buu celinaya ama inta kale bar buu qiimaheeda bixin karaa barhkaasunbaa xoroobaya inta kalena addoonimada baa ku noqonaysa intuu isagu leeyahay horta xorowda inta kale waxuu ku bixiye qiimaheeda haddaanu haynba oo mucsir uu ku yahayna waxa xoroobaysa un intiisa un inta kalena qofkii lahaa bay addoon u ahaanaysaa waana sida dee xadiidka ku timi man actaqa shirkan lahu fii cabdin وكان له مال يبلغ ثمن العبد قيمة باقي العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاء حصصهم وعتق عليه العبد وإلا دانوا هين مال كبحيو قيمها انت كله فقد عتق عليه منه ما عتق انت كحرودي سوق حريين بحرودي انت كلنا الدوم بس كتم بعض بنقنين وتقع ويدعس السرايه فديستا وفديو عتقي marka uu muusirka deeyahay fil xaal way dhacaysa isla marka uu ku dhawaaqo markuu qiimaha bixiyo la sugi maaye mar alaala markuu ku dhawaaqo ayuu cidqiga ku fidaya doon ala la dhari marka la eego wa fi qawlina dha'ifa bi adaa'i alqiimati marka uu qiimaha bixiyo inta kale qiimaheeda markuu bixiyo taqacu siraayatu bi adaa'i alqiimati walaysa almurad hadaba muusirka kana ayuu niri haduu muusir yahay adoonku bar ku laaba barkii uu xoreeyay intii kalena way xoroobaysaa dadkii lahaana intooda loo qiimeynaya qiimoodu bixinaya muusir halkan waayo walaysa almuraad waxa loola jeedaa maa bilmuusir huna halkan huwa alghaniyu ghaniga loolama jeedo muusirka okey cumrulghaalibka wax ku filan haystee looma jeedo bal man mid baa loola jeedaa lahu isaga uu sugnaaday min almaali meel xaggii uga sugnaaday waqtal ictaaqi marka uu xoreynayo qeybtiisa ama uu wada xoreynaya addoonka ما قدر وقصنا هذا قدر كاسو يفي وفينيا بقيمة نصيب الشريك كي شراكة هايين قيبتي سقيمة هذا وفينيا فاضلا حاله قدر كاسو يمد ديرات كعن قوتي سقى قوت كيسا يو قوتي من عد قوتكو تلزموا يسقى يكون واجبتين نفقته مصروفكم في يوم مال كيسا يو ليلتي مال كاي هبين كاسو كتير وعن دست الثوب ديرات حاله وكياهي اسكو تشوق مرو ويليق به isaga ku haboon marka xaalkiisa la eego mu'tiqas wa an sukna yawmi haalo qadarka maalka uu dheeraad ka yahay an ujrati sukna yawmihi maalinkiisaas iyo habeenkiisa kirada uu ku dego meesha uu kira ku degan yahay jirtadii oo taas adoon ay qof wada lahaayeen ayuu xoreeyay qeybtiisa haduu muusir yahay Soomaaliya oo qeybta kale xoroobaysa qiimaheedina wuxuu celiyay cidii lahayd muusirku haddaba waayo waa mid kasta oo haysta xoolo qaybta kale qiimeeda ku bixin karo oo dheeraadka ah isaga quudkiisa iyo quudka cidda masruufkoodu ku waajibay iyo isku joog dharo u xidho iyo yada kuwa mas'uulkii laftooda xidhaan iyo hadduu kira ku jiro maalinka iyo habeenka kiradii dheeraadka yahay ba shardiyan wa kana عليه المعتق قيمة نصيب الشريك كان واجب عليه على الموصر المعتق حرية قيبتيسا قيمة نصيب الشريك واجب الشركاء يهين قيبتيسا قيمة دي واجب عدو وضبحين كريوي هذه كلانا انت وبحين كري قيمة
yowma ictaaqihi maalinka ama waqtigaa uu xoreeyey qiimo u ah marka uu xoreynta ku dhawaaqay qiimaha qeybta sharigiisu ay maraysaa ku waajibaysa ka hor iyo kadib toona lama eegayo waayo waqtigaasuu itlaafiyo qofka xoolihiisii ka baabiyey soo mahade xoreyntaa qeybtiisii xoreeyey kaga baabiyey waman malaka qofka milkiye waaxidan mid min waalidey labadiisa waalid ka mida kor baa u kacaane aw min mawlidiihi ama kuwa uu dhalay mid ka mid a cataqa caley uu ka xoroobayaa waaxidkaas uu ka xoroobaya waxaa shardu inuu isagu xor yahay si dhamaystiran xor yahay isagu addoon yahay ama mukaatab uu yahay oo uu mulkiyo dabeetana mid ka mida waalidkiisii ama awlaadiisii ka xoroobi maayaan waayo dee arrinta walaa baa ku jira walana ma laha addoon goormuu ka xorooya bacda milkihi markuu mulkiyo dabadeed yarba khalaas ha iibsado ha loo hibeeyo sawaban waxaa isku mid a kaana haya almaaliku kan yeeshay waalidkii ama awlaadiisii yeeshay in ahli tabaruci mid ka mida dadka wax ku tabaruci kara shareecadu ogoshay aw laa ama ma ahaynna sabiyin wamajnuunin halkan minhaajka u khilaaf minhaajku wuxuu dhaha idaa malaka ahlu tabarucin inuu tabaruca ehel u yaho shareecadu ogoshay buu shardi uga dhigaya faslu fi axkaami alwalaa walaagu waa waxyaabaha ka dhasha thamaraadka ka dhasha weeye midhaha ka dhasha xoreynta marka haddii axkaam buu leeyahy wa huwa walaagu luqatan mushtaqun waa mid laga soo qaatay min almuwaalaati baa laga soo qaato dee dhowaanshaha iyo maxabada iyo nusrada iyo macaanida noocaas oo qofku dee qofkii xoreeyey mid u dhow buu noqonaya oo jecel oo dee u nusreeya asalkaa dee saasa sooma ila gacan weyn buu ku leeyahy markuu addoonnimo ka saaree wa sharcanna cusuubatun waa qaraabo sababuhaa sababteedu zawaalulmilki ay tahay lahaansho suulisteed can raqiiqin addoon lahaanshi uu ka suulo addoonkaasoo muctaqin mid la xoreeye yacni waa shay dee qaraabada shabaha oo sababtiisu nasab iyo waxaa maaha sababtiisu waa maxay waa qof la lahaan jiray oo lahaanshihii uu ka suulay wاlwalaau bilmaddi marka la akhriyo min xuquuqi اlcidqi thamaraadka iyo midhaha xoreynta ayuu ka mid yahay laazimna wuu yahay qofku xataa hadduu addoonku xoreeye hadduu ihahdo anigu welihiisa dooni maayo hadalkiisa wax kasoo qaad male isagun baa wala helay dooni maayo kaga hari maayo waa xaqun oo laazimu lahu xaq laazim u ah xukmuhuna ay xukmu lirthi dhaxalkii xukumkiisa bilwalaa'i lagu dhaxlo axkaamta walaa ka dhalata maxaa ka mid a waa la ysku dhaxlaa dee marka in wax lagu dhaxlo xukumkeeduna xukmu tacsiibi ay xukmu tacsiibi binasab alcasabatu binasab xukumkeedii oo kale weeye cinda cadamihi marka nasabkii la waayo oo nasabka uu ka dambeeyaa dee waa qaraabanimada nasabka ka dambaysa marka qofkan la xoreeyey qof nasab ku casabaynaya hadduu jiro walo qof ku casabaynaya ma jiro walihada wuxuu kuri cinda cadami cinda cadami tacsiibi binasab oo cid nasab ku casabaysa haddaanay jirin kii xoreeyey ama ka isaga xoreeyey ayaa u noqonaya maxay casabo bilwalaa sabaqa waa soo hormaray buri macna tacsiib tacsiib macnihiisu waa soo hormaray waayahay fi lfaraa'idi fi kitaabi alfaraa'id buu ku soo hormaray oo casabaya ahaa man laysa lahum sahmun muqadar xaala tacsiib kuwo aan marka ay casabada yihiin aan lahayn qori go-an wayantaqilu waa guuraa alwalaau waluhu can ilmuctiqi kii xoreeyey buu ka guuraa oo yuu u guuraa ila dukuuri kuwa labka ah min casabatii xaale ay ka mid yihiin casabadiisa ee almutacasibiina weliba kuwo ku casabeeya bianfusihim walcasabatu binafs ayuunbaa dhaxasho walaha walcasabatu maca alghayr oo tusaale ahaan dee alukhtu maca albinti oo kale iyagu walaha shaqo kuma laha uma guuriyo walahu iyaga alcasabatu bilghayrna waa albintu maca alwalad oo kale albintu maca alibn iyo alukhtu maca alakhi
iyagana uma guuro laaka binti muctiqihi ka xoreeye inantiisoo kale maya wa ukhtii ka xoreeye walaashiina maya ka xoreeye dee inantiisu casabo way noqon kartaa laakiin dee casaba bilghayr bay noqonaysaa ukhtuna casabo way noqon kartaa laakiin maxay noqonaysaa casabatun maca alghayr waayo marka raggii unbaa walaha qofkii ka dhaxlaya kii walaha lahaa hadduu dhinto raggii casabadiisa ahaa ayuunbaa ka dhaxlaya dumarkii maya wa tartiibu lcasabaati haddaba casabada kala horeysiintoodu fi lwalaa walaha lagu kala horeysiinayaa walaha midhihiisa iyo dee fawaa'idadiisa dhaxalkii oo kale iyo taswiijkii iyo marka fi lwalaai fi thamaraati lwalaa fawaa'idi tartiibin waa sida kala horeysiintooda fi lirthi dhaxalka lagu kala horeysiinayey asalku waa sidaa waxbaa laga soo reebi doonaa oo alcasabatu binafsi siday dhaxalka ugu kala horeeyaan ayay ugu kala horeynayaan maxay walaha xuquuqdiisana ku dhaxalkiisii iyo xaggii wilaayat taswiij iyo waxyaabahaas laakiin walaha laftiisa ku kala horeynayaan maaha weli wada sugmaya dhammaantood laakiin hadha waa la kala reebreebayo dhammaantood u wada sugmaya welu sida casabanimaduba ay ugu wada sugmayso laakin aladhaara hase yeeshee qowlka adharkaahi fii baab ilwalaa marka la joogo waa masale ay ku kala duwan yihiin baab lwalaa iyo baab lirthi oo asalku waa inay labadaa baab xagga tartiibta casabada ay isku mid ka noqdaan laakiin masaa'il baa laba masalo ka soo reebaya asalku waxa wey fi baab lwalaa marka la joogo ana akha lmuctiqi ka wax xoreeyey walaalkii wabna akhiya ka walaalkii uu dhalay muqadamaan waa kawo laga hormarinayo calaa jaddi lmuctiqi ka wax xoreeye awowgii bikhilaaf alirth baabkii dhaxalka marka la joogay khilaafkeeda ee binasabi wax lagu dhexleeyey faina alakha walaalka iyo waljadda awowgu shariikaani weeye halkan ayaa la hormarinaya akhii baa jadka laga hormarinaya walaa tariu dhaxli mayso imra'atun gabadhi bilwalaa'i ku dhaxli mayso wala waxba ku dhaxli mayso ilaa min shaksin qof xaggiina wax ka dhaxasho mooyaane baasharad ay baashirtay iyadu cidqu xoreyntiisa oo gabadhi waxay wala ku dhaxli kartaa kay iyadu xoreysay ka muwarithkeedii uu xoreeyey maya walaysa fi nisaai طuran casaba ila alatii manat bicitqi raqaba wey aw min awlaadihi ama awlaadiisa waxay ka dhaxasho mooyaane kay xoreysay awlaadiisa waxay ka dhaxasho mooyaane iyo cutiqaa'i kay xoreysay dee awlaadiisana cid nasab ku casabaysa haddaani jirin iyadan wala ku casabaynaysa kay xoreysay kuwii xoreeyey cid nasab ku casabaysa haddaani jirinna isaga iyadaa waxa nasab ku casaba wala ku casabaynaysa walaa yajuusu ma banaana ilaa yasux ansix maa baycul walaa walaha in la iibiyo walaa hibatu iyo hibeyntiisu toona waa luxmatun ka luxmati nasab nasabka miyaa la hibeyn karaa miyaa la iibin karaa maya tana waa soo kale naha nabiyu can beyci lwalaa wahibatihi xadiidka bukhaari muslim ba wariyeen waxiinaidin markaa laa yantaqilu guuri maayo alwalaa waluhu can mustaxiqihi ka guuri maayo inta yani uu nool yahay kaasi markuu dhintana yuu u guuraya casabadiisii alcasabatu binafsiha unbuu guuraya faslu fi axkaami tadbiir dibka xoreynta axkaamteeda ayuu fasalkani ku saabsan yahay haadaa faslun oo khabar laga dhigo mubtadihiisa xadfan yahi mubtadana waad ka dhigi kartaa oo sida fiican baraan faslun yani hada maxalu mabxathuhu faslun fi axkaami tadbiiri hada maxalu mabxathuhu waay ma la odhan karaa faslan yani waa la baneeyey laakin jumlo dhan baa xadfa bay markaa noqonaysa wax laga fiican faslin haddii la idhaana ma banaana in majruurkii la reebo xarfu jarkiina la jaro wa huwa
tadbiirku luqatan annadar waa eegmada fii cawaaqib اlumuuri arrimaha cidhibtooda dambe la eego yacnaa waxa ka dambeynaya arrimaha ee ka dhalanaya in la eego ayaa luqa ahaan la idhaahdaa waana arrin aada u fiican fii umuuri اdiini wadunya qofku hada jeer inuu cawaaqibta eego xaaladda uu taagan yahay oo qura aanu arinta mowqifka uu ka qaadanayo aanu ku sarjarin waana waxa dee shareecada u taqaana almuwaazana bayna almasaalixi walmafaasid wa sharcanna waa cidqun waa xorayn can duburi lxayaati nolosha dabadeed fii duburi lxayaati nolosha dabadeed dhacaya marka tacriifka laga fiicanya tacliiqu cidqin waa in lagu xidho xoreyn bilmowti lagu xidho dhimashada aladi huwa dubur اlxayaat marka halkan w tacliiqun cidqun u yihi waxaa la odhan karaa mudaafkii baa xadfalo waa tacliiqu cidqin xoreyn waa in la calliqo la laalaadiyo biduburi اlxayaati lagu xidho nolosha dabadeeda oo dee mowdka ah almuhim waa in addoonkiisa xornimadiisa geeridiisa uu ku xidho wadakara wuu sheegay almusanifu biqowlihi uu ku sheegay uu yihi waman ay wasayidu sayidkii addoonka lahaa idaa qaala hadduuna licabdi addoonkiisa hadduu ku idhaahdo maala waa tusaale addoontiina waa la mide idaa midtu haddaan dhinto ama markaan dhinto dhe ana anigu fa anta adigu xurun xor baata ama dee barhkaabaa xora buu ihi hadduu barhkii yidhaahna dee wada mudaber buu noqonaya fa huwa ay alcabdu addoonku mudaberun waa mid dib laga xoreeyey oo bimacnaa xornimadiisii lagu xidhay mowdka sayidka oo yactiqu wuu xoroobayaa bacda wafaatii buu xoroobaya sayidkiisaa yidhi markuu dhintay yaa sayidi min uluihi buu ka xoroobaya ay uluثi maalihi sayidka maalkiisa 3 meelood oo meel buu ka xoroobaya in kharaja hadduu baxo kullu dhammaanti min auluث uu ka baxo oo haddii dee ulukiiba uu ka badan yahay tusaale ahaan addoonka qiimihiisa ama addoonka qiimihiisa u dhigmo wuu wada xoroobaya marka min uluihi wa maxsuubu min uluihi wa ilaa haddaanu uluka ka wada baxahayn oo qiimihii addoonkaa ulu ka badan uluulmaalkii ka badan oo tusaale ahaan gebigiisuba maal 2 addoon buu ka tegey labadii addoon buu mid markaa tadbiiriyey dee addoonkii quraa uluulmaalki uu ka badaya soo ma waa nisfulmaal tusaala da isku qiimeeyeen cataqa waxa xoroobaya minhu mudaberkaa waxaa ka xoroobaya biqadri maa intii qadarkeed kharaja uluka ka baxda oo tusaale ahaan nisfuhu baa uluulmaalkii noqday nisfu mudaber nisfuhu baa xoroobaya de goorma wey in lam tujzi lwarahatu haddii dhaxlayaashu inuu wada xoroobo aanay ogolaan hadduu uluulmaalkii ka badan yahay oo idhaahdaan ha iska wada xoroobo annagaa ogolaanae markaana uu wada xoroobaya marka 2 shardi ayuu ku wada xoroobaya shardiga koowaad oo ah uluulmaal iyo ka yar inuu yahay isagu addoonku shardiga labaad oo ah uluulmaalki uu ka badan yahay laakiin warahadii baa ogolaatay inuu wada xoroobo oo sidii dee wasiyadoo kale wuxuu ku dardaarmaa goormuu baxayay hadduu uluulmaal iyo ka yar dee yahay sooma amaba se warahadu ay wasiyadaa ijaaseeyeen ay ogolaadaan kana waa sidoo kale un wamaa dakara wuxuu sheegay almusanifu oo tusaalaha uu yidhi idaa qaala licabdihi idaa midtu ana fa anta xurun huwa waxa uu sheegay min sariixi tadbiiri gadaalka xoreynta ereyada ku cad buu ka mid yahi ee niyo aan u baahnayn wa minhu tadbiirka sariixa waxaa ka mid a dibka xoreynta ku cad ولو idhaahdo actaqtuka waan ku xoreeyey bacda mowti ama anta xuru bacda mowti xarartuka bacda mowti anta mudabarun aw dabartuka uu idhaahdo bacda mowtiba yaan odhane
ويصح هو أنصحيا التدبير دبك حرين بالكناية أو أنصحيا الفاظ حرين يوح كلام احتمال أيضا كل نقاش مع نيتي حاله نيو دبك حرين أي لصعد كخليت سبيلك إنه راض وضد دوام بني بعد موتي ما حبستك بعد موتي وتدبير نيو ويجوز هذا بقى الدون كاو دبك حرية انتو نول ياهي maxaa uga banaan ويجوز waxa u banaan lahu ya sayidi sayidkii dib ka xoreeyay adoonka an yabiicahu inuu iibiyo adoonkii uu dib ka xoreeyay yaa mudabbara adoonkii uu dib ka xoreeyay fi xaal xayaati intuu nool yahay uu iibin karaa yaana sidii adoonkiisa waxba aanay ku tacalluqin ee adoonnimadiisu ay dhamayska tirnayd ayuu la mucaamaloonaya uu iibin karaa uu hibayn karaa marka wax hadduu ku sameeyo dee milkigiisii suulinaya tadbiirka uu buraya bay dee noqonaysa wasiyadiina dee waa tii lamidka ahayd wayubtilu waa burinayaa iibkaasi wayubtilu waa burinayaa baycu iibintiisaas tadbiirahu dibka xoreyntiisa uu burinaya hadduu iibiyo addoonkii uu dib ka xoreeyey dibka xoreyntii inuu ka noqday bay dee noqonaysa walow waxa u bannaan sayidkii addoonkiisa gadaal ka xoreeyay aydane التصرف baa u banaan tasaruf fiihi uu ku tasarufo addoonkaas mudabbarka ah bikulli maa shay dhammaantii uu ugu tasarufo oo yuziilu suulinaya almilka oo iibkoo qura u bannaan maahe wax kastoo milkigiisa suulinaya ugu tasarufi kara wadaalika hibatin weeye bacda qabdihaa marka la guddoomo dabadeed dee markaasunbay iyadu milkiga suulisaa sooma inta ka horeysa milkigama suuliso أو جعل يا مكة يلستي سو كي لو كلوي صداقا مهر في النكاح وحي ملكي جسولين هذا قلت تصرف كرا وحي ملكي جسولين ندوا من باب الأولى إعارة إجارة استخدامي حاصل من هو بناين المهم كالقني وي والتدبير والتعليق عتق وي وحرين إن لغو حرا عتق اعتاقد بصفة إن لغو حرا في الأظهر وفي قولنا وصية هو دردار للعبد أدونك الله درداره بعتقه حرنمدي صلى درداره عن لبدا واتي أجمل كلية هاي إذا مت فأنت حر التدبير كأسميه محرين تيسيبوا صفة كحرة صفة ذا صوم حياة موت السيدة وقرى أما واحد الله صعبة شرط كلو راعين كراي وحوران كراي حويا يعني إذا مت فأنت حر إن دخلت الدار مركان محرين تيسا أو صفة كحرة بقى بيسوى دردارا ودردار مي إنه حروبه وكوري وصيت لك بعتقك بعد موتي حر لماذا هذا كو دردار مي يعني أنا حر نقطه اللي هو منفعه مركان دينته لبدا واتي قولك هذا الكحولية وتعليق عتق بصفة ما أحكام كررت ما يدها فعلى ظهر قولك هذا الكامر كالغو الصعدوين وعتق تعليق عتق بصفة ياهي لو باعوا هدو يبيع الدون كي مدبر كاس سيده ثم ملكه وهذا الملك جيسا وديبو صقله وديبو وياشو سوى ولي النول لم يعد التدبير ديبك حرينتي صون نقول ميسو مركو إيب كيبا بريه سوما هدو إيب كدبدي هدنا ياشو ديب حرينتي صون نقول ميسو على المذهبي مركو حلقو نسو ومعتمد كان ومركا دي مفهوم قال كان محو نقريا حدي لا يراهدو وصيه للعبد بعتقه ديبك حرينتي way soo noqonaysa ما واسكم بيت هذا الكان لو باعه السيد ثم ملكه لم يعد التدبير مفهوم ماله وحدي لا يراهدو تعليق عتق بصفه حدي لا يراهدو وصيه بالعتق وصيه للعبد بعتقه hadduu iibiyo oo haddana milkigiisa dib uu soo galo labada tii la yidhaahdaba tadbiirkii soo noqon maayo hadalkiisa sidaa ka fahmeen iska ilaali وحكم المدبر أدون كدب لقى حرية حكم كيسو في حال حياة السيد أنت سيد كيسو نولي حكم العبد أدون كحكم كيسوي أدون كي القني وح حرنمو حرير لله أنا كنت تعلق القن واكي والذي لم يتعلق به شيء من مقدمات العتق
waa addoonka shay ka mida waxyaabaha hordhaca xoreynta u ah ama xornimada u ah aanay ku tacalluqin oo yaa ka soo horjeeda almukaatab muqadimaat lcidqigii oo dee kitaabadaa ku tacalluqay soo mubacadkii mudaberkii ka cidqigiisa sifa lagu xiray umulwaladkii muqadimaat lcidqi waa ku tacalluqo dee dhalista ay sayidkeeda u dhashay marka isagoo xagga axkaamta intuu sayidku nool yahay wuxuu la mid yahay addoonka wax cidqi xidhiir la leh aanu ku tacalluqin xiinaydin markaa markuu sidaa yee takuun waxay noqonaysaa haddaba agsaabulmudaberi addoonkaa gadaa laga xoreeyey waxyaaba uu shaqaystaa lisayidi sayidkay u ahaanaysa sayidkaa iskale intuu nool yahay sayidku waa wuxuu shaqaysto laakiin markuu sayidku dhinto dibeed wuxuu shaqaysto isagaa iskale wain qutila haddii la dilo almudabaru addoonkii dib laga xoreeyey iyadoo sayidkiisu weli nool yahay falisayidi sayidka waxaa usugan alqiimatu baa usugan tadbiirkana uu buray dee ile maxalkiisa meesha ka baxay inuu bedelkiisa lacagtaa kusoo iibiyaana waajib kuba aw quطica ama la jaro ay cudwun oo min almudaberi kamida gacan ama lug baa laga jaray falisayidi sayidka alarshu baa usugan arshulqaطci waa inta qiimihiisi ay ka nuqsaamisay ila nisba wayabqa waa haraya waa baaqi ahaanaya atadbiiru tadbiirki bixaali xaalkiisu ku baaqi ahaanaya ila addoonku wuu nool yahay oo in laga jaray oo intaa uu magdhow ka qaatay tadbiirkii meesha ka saari mayso bibacdi nusakh xukmu lmudaberi addoonka dib laga xoreeyo xukumkiisu fi xayaati sayidihi sayidkiisu intuu nool yahay xukmu lcabdilqini weeye addoonka waxyaabihii hordhaca u ah xoreyntu aanay la xidhiidhin faslun fi axkaami lkitaabati fasalkan wuxuu ku saabsan yahay axkaamta kitaabada sida inay sunno tahay iyo shuruudda loo dhigo mukaatabka iyo mukaatibka iyo waxo dhan bikasri lkaafi fi lashhari waqiila bifatxiha kalcataaqati wallahu aclam sal alla ala nabiyina maxamed